munaasabadani oo ahayd mid hanaankeeda heer sare loo soo agaasimay oo ka dhacday magaalada Nairobi ee caasimadda Kenya. Kulankani oo ahaa mid daba socday kulamo kale oo kala duwan oo ka dhacay magaalooyinka caalamka ku yaala gaar ahaan Xamar, Minneapolis. Ujeedka kulankani oo ahaa sida ay beeshu ugu midoobi lahayd danaha guud iyo kuwa gaar ahaaneed iyo weliba arrimaha samafalka isku xirnaanta danta guud. Munaasabadani waxaa ka soo qayb galay qaybaha kala duwan ee bulshada, dhalinyaro, aqoonyahanno, fanaaniin iyo weliba sidoo kale waxgarad. مسؤولينta kala duwanaa ee halkaasi ka hadlay ayaa dhamaantood ku dheeraaday ahmiyadda ay midnimada beesha leedahay, waxayna tilmaameen in si gaar ahaaneed loogu baahan yahay midnimo lagu tanaado. bismillah, alhamdulillah, wa lillah, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salaam ba'diyad. Waxaan ku faraxsanahay inta aan jiray ururkan aan arag qalbigayga iga jiray dhalinyarada caawaan dhex taagnahay yaan aad ugu faraxsanahay. ruux hadduu faraxsan yahayna warkiisu uu gabi dhacaa. ruux hadduu faraxsan yahay ruuxa bini'aadamka warkiisu uu gabi dhacaa. muddo dheer baan jiraa 16 baan magaalo ku galay intaana ummad baan dhex socday. meeladaan joogin ma arag meelaad macna ku leedihiin ta ma arag. meeladaan joogin ma arag meel jaamacadaha idinkaa dhiga, dugsiyada quraanka idinkaa dhiga, wax walba idinkaa ogeey meelaad macna ku leedihiin ma arag. hay-adaanan ka shaqayna way yar tahay. marka caawaad baan faraxsanahay inta aan jiray wixii qalbigayga jiray yaan caawa hor taagnahay. alxamdulillaahi rabbil caalamiin. waan idinla dardaarmayaa, waxaan idinkula dardaarmayaa midnimo aan idinkula dardaarmayaa. waxaan idiin sheegayaa geeska Afrika waxaad beesha koowaad baad ka tihiin mana muuqataan. muuqashalaantiina caaway soo afjarantay. muwaafaqaan idin farayaa, muwaafaqaya midnimo idin farayaa. Soomaaliya xornimadii 3 wiilun baa cadaankii intay dhagta afka isu saartay ka soo horjeesatay. saasaa lagu xoreeyey oo calanka shanta gees lagu keenay. marka waxaan idin rajaynayaa wixii inuusan dhalanteed noqonin. waxaan idinkala dardaarmayaa, tafaruq baan idinkala dardaarmayaa. ha ahaado ulajeedadinu meel hore ahaato, meel fog ahaato. waddanka xeebaha iyo beeraha iyo dhulka aad leedihiin oo nimcada idinku idin sugayaa. idinka jiilkan weeye, waa habeenkii xornimada weeye. waa xornimo weeye. waxyaalo badan oo sheegi lahaa saxaafad lagama sheego, laakiin ururada iyo aqoon-yahanadii iyo gudiyaashaan u sheegi doonaa. waxyaalo badan baa laabteeda ka buuxa oon sheegi doonaa ood ku socon doontaan. waa xornimo weeye. caawa guul weeye. caawa waa guul weeye. farxad weeye. waa ciid weyn weeye. waa waxaan sugayna oon gaadhnay weeye. waqtigii baa la gaadhay, waqtigii deegaanka iyo dadka iyo diinta aad wax u qaban lahaydeen baa la gaadhay. hore u socda insha Allah. wabillahi tawfiiq. aad baan idin salaamayaa. assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. guulaysta insha Allah. السلام عليكم. رفق عمر دمان وايد السلامي. وحلا يا رفق عمر قول. وحلا يا همبليو. وحلا يا بلي يرضى نوك علي همبليو. أنا وحنا بس عضا أنتي هراء. سوى إذا كوينا هاي أنت بدنا ماشي جوكته. مركو حيد لا هاي رفق عمر دمانتين ومهتسنتين. waxaan leeyahay waxay noo binowday dadaal fiican. dadaalkii dadkii bilaabayna waxaan leeyahay Allah barakeeyo. inta dambe daba joogto waxaan leeyahay noolaada. hal mid ay ku darsanaya. raalli ahaada. waxaan idin leeyahay walaalayaal wanaga haddaan nahay beesha Sheekh Khalid. waxaan ay beel aad u tiro badan oo aad u weyn. haddana meel kasto aan joogno ma muuqano. dadka waa ka xoolo badannahay kama xoolo liidano. dadka waa ka tiro badannahay kama tiro liidano. dadka waa ka aqoon badan aan aaminsanahay
nahay sida aan arki jiray diini iyo maadiba cidna nagama horrayso laakiin dhibka jiro waxaan jirin isku duubni la'aan intii hore haddayna hagradeen waxaan idin leeyahay intiina dambe horay ha loo socdo hore ha loo socdo insha allah biidnillaahi tacaala maanta keliya nooma ahaan doonto waa sidaan u bilownay hawsha waxaan idin leeyahay dhammaan reer faqa cumar بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaan ka hadlayaa horta waan salaamay dhamaantiin marka koobaad waxaan aad salaan qiimo badan halkan ugu gudbinayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed ee halkan joogta gaar ahaan dhalinyarada reerka shaqaale mashruucan kala sameysay waan u hambalyeynaya waxay ku tusinaysaa wax weyn inay qaban karaan waxaan doonayaa bal horta ummadda oo dhan baan rabaa inaan wax u sheego inta laga aamusayo bal qisaan rabaa inaan idin sheego qisadan aan idinka sheekeeyo wax yar hadda ka hor waxaa dhacday nin qisa uu sameeyay baan rabaa inaan idinka sheekeeyo nin baa jiray hadda ka hor ninku wuxuu ahaa nin caaqil oo aad u caqli badan oo dadka xigmadda lagu sheega aha ninkaasi wuu isla sheekaystay dadkana wuu u sheegay wuxuu sheegay ninkaasi inuusan guursan doonin inta uu nool yahay ilaa uu ka arko yacni gabadha uu rabo nooceeda ayuu caddeeyey yuu sheegay dadkiina wuu sheegay isna saasuu iskula hadlay maalin maalmaha ka mid a waxaa dhacday ninkii oo tuuladiisii jooga baa dad safar ah ayaa u imaaday safarkii baa wuxuu weydiiyey xaggeed ku socotaan waxay u sheegeen meel heble ayaan ku soconnaa intaa ka bacdi waxaa dhacday wuxuu yidhi ma idin raaci karaa ha waadna raaci kartaa buu ninkii yidhi way israaceen markay dhexda sii marayaan ayaa wuxuu weydiiyey ninkii isaga ahaa su'aal buu weydiiyey wuxuu yidhi war haadha niyow su'aal baan ku weydiinayaa ma i qaadaysaa mise waan ku qaadaa ninkii wuu ku qoslo wuxuu yidhi war haadha miyaad waalan tahay sideen kuu qaadaya aduguna ad ii qaadaysaa aduguna gaadiidkaagaad wadataanna gaadiidkaygaan saarrahay haddana markay wax yar sii socdeen ayaa su'aal kale ayuu maaragtay weydiiyey wuxuu weydiiyey niyow su'aal baan ku weydiinayaa beer waxay soo mareen la goostay beertan ma la gooyey mise lama goynin ninkii mar labaad buu ku qoslay wuxuu yidhi maxaa kaasi ah beerta in la goostay waad u jeeddaa cabbaar markay sii socdeen ayaa haddana waxay arkeen qof meydaha ayay arkeen qof dhintay ayay arkeen qof meydaha ayay arkeen oo janaasadii lagu wado nacshi lagu wado su'aal buu weydiiyey wuxuu war haadhe ninkan miyuu nool yahay mise wuu dhintay ninka janaaza lagu tukanayaa yaa wuxuu yidhi war ninkan miyuu nool yahay mise wuu dhintay ninkii aad buu ugu qoslay wuxuu yidhi niyahow doqonnimadaadii baa caddaatay maxaa yeelay qof lagu tukanayo janaasada baad leedahay war qofkani miyuu dhintay mise wuu nool yahay ninkii wuu iska aamusay reerkii ay ku socdeen bay tageen wax yar markay joogaan ayaa ninkii reerkiisiibuu u tagay oo wuxuu ku yidhi reerkiisii nin baa ila socda xoogaa maskaxda lagaga jiro waxaan u baahannahay inaan martagelinno si uu inooga tago oo uusan noogu sii daahin gabar uu dhalay baa waxay weydiisay ninkan maxaad ku aragtay nin fayow buu ogyahay wax waalan uma ekee su'aalihii saddexda ahaa ee uu soo weydiiyey ayuu wuxuu oga sheekeeyey wuxuu yidhi markaan soo soconnay ayaa wuxuu igu yidhi su'aal buu weydiiyey su'aashuu weydiiyey waxay ahayd warniyahu may qaadaysaa mise waan ku qaadaa su'aal kaluu weydiiyey beer la gooye baan soo marray oo wuxuu yidhi war beertan ma la goostay mise lama goosanin anoo la yaaban labada su'aaloo su'aal saddexaad buu weydiiyey wuxuu yidhi qof lagu tukaday janaasadii ayaa wuxuu yidhi qofkani muu dhintay mise wuu nool yahay qisadaan u soconno waa midda u dambaysa oo ahaa miyuu dhintay mise wuu nool yahay baan u soconnaa waxaa dhacday gabadhiisii baa ninkii u sheekaysay wiilkii odaygii gabadhiisii buu arrintaa u sheegay gabadhii waxay ku dhahay aabe ninkani ma waallo waa nin aad u caqli badan waa nin xakiim aha adiga ayaan fahmin odaygii wuxuu ku yidhi waay iga sheekee muxuusan u waallayn qisadii hore ee ahayd war may qaadaysaa mise waan ku qaadaa wuxuu ka waray war niyahow intaan sii soconna ma ii sheekaynaysaa mise waan kuu sheekeeyaa qisada labaad ee ah beertan ma la gooyey mise lama goyn wuxuu ka waday qofkii projectigan bilaabay miyuu dhammeeyey mise ma dhammaynin qisada u dambaysa een u socdo waa halka u dambeeya wuxuu ku dhahay waraadhe ninkan miyuu dhintay mise wuu nool yahay
wuxuu ka waday ninkani adduunka intuu joogay ma jiraa wax khayr ah oo adduunka kaga tegey adduunka intuu joogay ummad baahan dhibaato ma ka bixiyey dad masaakiin aha ma caawiyey dad iskhilaafsan miyuu heshiisiiyey ilma agoona wax miyuu u taray ceelal miyuu qoday waddooyin miyuu sameeyey dhismayaal miyuu sameeyey ummadda midnimadeeda miyuu ka shaqeeyey qabyaaladii iyo wixii miyuu maaragtay dadkii oo dhan maaragtay walaalo ma ka dhigay meesha uu tago wax ma ku taraa dadka wax wanaagsan ma u sheegaa dadka wax wanaagsan miyuu gudbiyaa inta uu nool yahay sidaas ayaan ka wadaa ilmo wanaagsan miyuu ka tegey ereygaa waxaan ka wadaa dhammaan dhallinyarada waxaan u sheegayaa qof kasta wuxuu jecel yahay su'aal hadda idin weydiiyo su'aashaas waxaa weeye waxay dhahaysaa yaa doonaya inuu noolaado 100 sano 1,000 sano inuu noolaado yaa doonaya su'aal baa idin weydiinaya waxaan jeclaan lahaa su'aashaas in laga jawaabo yaa doonaya inuu 1,000 sano noolaado qof walba laakiin waxaa laga yaabaa in qofku isdhoo 1,000 sano yaa noolaan karaa haddaad rabto 1,000 sano iyo ka badanba inaad noolaato inta adduunka aad joogto khayr kaga tag inta adduunka aad joogto wanaag kasbo inta wanaagga adduunka aad joogto waxa weeye raadkaagu wuu sii soconayaa 4 arrimood oo dhallinyarada inaan u sheegaan jeclaan lahaa baa jirta laakiin aasif buuqa ayaa badan 4 arrimood baan ku soo koobi lahaa oon jeclaan lahaa dhallinyarada inaan caawa u sheego تمام waxaan jeclaan lahaa 4 qodob oo aad muhiim u ah inaan u sheego dhammaan dhalinyarada halkan joogta qof walba oo inta naga mid ah waxaan jeclaan lahaa su'aashan caawa inuu isweydiiyo qof kasta su'aashan soo socota inuu isweydiiyo oo isweydiiso waa inaad isweydiiso anigu kumaanahay inaad isweydiiso adigu hadda inaad kumaanahay xageen jooga waxaan ka sheekeynaynaa caawa waxa weeye horta waa calaaqaad iyo waxaad u jeedaan waa xiriirka waxa la yiraahdo sidan uu ka bilowdaa waa relationship waxaan ka sheekeynayno waa calaaqaad qofka calaaqaadkiisa waxa ugu horeeyaan raba caawa in aad sheego ka bacdi waxaan xafladda waan ku soo khatimayaa ereyga u dambeeya waxa ugu horeeya qofku markuu rabo inuu hagaajiyo relationshipkiisa waa inuu hagaajiyo xiriirka ka dhaxeeya isaga iyo Allah subhanahu wa ta'ala qodobka labaad ee laga rabo qofku inuu hagaajiyo waa maxay waa inuu hagaajiyo isaga iyo labadiisa waalid xiriirka ka dhaxeeya qodobka kale saddexaad ee qofka laga rabo inuu hagaajiyo waa maxay waa inuu hagaajiyo xiriirka isaga iyo qoyskiisa ka dhaxeeya qoyskiisa laga bilaabo hooyadii iyo aabihii laga bilaabo xaaskiisa iyo caruurtiisa maaragtay habaryarihii iyo ayeeyadii dhammaan laga bilaabo qof kasta waa inuu dib u baadi doono qaraabadii yani qoyskaaga waxaa ka mid ahaa dhammaan abtiyaasha iyo adeerada iyo habaryaraha iyo dhammaan waxa weeye qofku waa inuu hagaajiyo arrinta aadka muhiimka u ah qof kasta laga rabo inuu hagaajiyo waa maxay arrinta bulshadu ay ku leedahay qof kasta waa inuu hagaajiyo nin walba waa inuu ka shaqeeyo xiriir wanaag marka waxa isweydiinay dhalinyarada hadda barnaamijkan caawa soo samaysay haddii ay dhacday inay isu keeneen beel dhan ay isu keeneen iyo beelihii kaleba halkan waxaa ka muuqanaysa xiriirkiiba horta bilowday arrintan horta arrin fiican weeye in dadka la isu keeno calan loo sameeyo dadkii yani qoyskii hataa waxaa calan samaysan karaa wiilkii aabihii calan bay samaysan karaa horta hore calankan su'aal baa isweydiin leh يعني علن كان Soomaalidu qabaa'ilka ay samaysanayaan ka waran wax mushkil ah ma leh meesha waxaan rabaa ana fatwada ina idin fatwada caawaniya yani waxa calan samaysan kara company shirkad hooyo iyo qoys wiil iyo aabihii baa samaysan kara laakiin ujeedada waa in ujeedadu maxay tahay ujeedadu waa maxay habka wax walba waa ujeedada laga leeyahay weey annaga waxaan u baahnaa inaan raadino waxa weeye waa calankii weynaa ee guud laakiin waxyaabaha yararkee hoose ee dadku isku aqoonsanayaan wax mushkil ah male waa la isku aqoonsan karaa laakiin waa in ujeedadu ay noqoto meeshii weynayd daladii weynayd in la raadiyo waxaan ku soo khatimayaa oon rabaa nin walbo inaga mid ah isagana su'aasha inuu isweydiiyo waa inuu isweydiiyo ku soo khatimayaa walaalayaal markii aad aqoonsatay xiriirka adiga iyo Allah idinka dhaxeeya xiriirka labadiina waalid idinka dhaxeeya xiriirka qaraabada idinka dhaxeeya xiriirka bulshadu ay kugu leedahay qof kasto inaga mid ahana waxa laga rabaa inuu u fikiro mar labaad uu isweydiiyo arrinta waa arrin aad muhiim u ah qof kasta waa inuu isweydiiyo isagana oo aad uga fikiro xiriirka ka dhaxeeya isaga iyo xiriirka ka dhaxeeya waa mid aad muhiim ah saadaradeed xiriirka ka dhaxeeya isaga iyo naftiisa qofku waa mid ugu horeysa inuu isweydiiyo
qof kasta waa inuu naftiisa eego caafimaadkeeda waa inuu eego cilmiyan maxaa u kordhay cibaadada maxaa u kordhay marka walaalayaal waan soo khatimayaa cabdinajiib cabdullaahi najiib akhyaar Boundless Media Nairobi